Asalaamu calaykum daawadayaasheena sharafta leh soo dhawaada dhammaantiin. Arrinta degdega ah waa idin ayaa ah arrin ay wargeysyada iyo warbaahinta ugu tunka weyn warbaahinta reer galbeedka iyo warbaahinta caalamka oo dhan ay qorayaan. Arrintaas oo ah jilaaga ameerikanka ee loo yaqaan Will Smith, kaas oo markii isaga oo la gudoonsiinayo abaalmarin xaflad lagu gudoonsiinayo abaalmarinta ku birdhaxay madhabaxa ku dhuftay aan idhaahnay nin markaas isaguna ku jeesjeesay xaaskiisa iyo isaga laftarkiisa oo hadallo markaas runtii ay u arkeen dee jeesjees ama meel ka dhac yidhi. Haddaba ninkaas oo taariikh la yaab leh ay ka raacday goobtaas oo uu jilaagaasi dharbaaxada ku dhuftay ayaa warbaahinta ugu tunka weyn leh reer galbeedka iyo dhammaan warbaahinta kale ee caalamka oo dhan ay tibinayaan. Waxaan jeclaysanay ninkaas waa Will Smith markii dambe isaguna raaligelin bixiyay banaan wada daawana muuqaal. Oh, wow! Wow! Will Smith just smacked the shit out of me. Keep my wife's name out your fucking mouth. Wow, dude. Yes. It was a G.I. Jane jump. Keep my wife's name out your fucking mouth. I'm going to, okay? Okay. That was a greatest night in the history of television. Okay. Okay. Now, know to do what we do, you got to be able to take abuse. You got to be able to have people talk crazy about you. In this business, you got to be able to have people disrespecting you. And you got to smile and you got to pretend like that's okay. I want to apologize to the Academy. I want to apologize to all my fellow nominees. This is a beautiful moment, and I'm not crying for winning an award. It's not about winning an award for me. It's about being able to shine light on all of the people, Tim and Trevor and Zach and Sanaya and Demi and Ingenue and the entire cast and crew of King Richard and Venus and Serena, the entire Williams family. Art imitates life. I look like the crazy father, just like they said. I look like crazy father, just like they said about Richard Williams. But love will make you do crazy things. Being able to love and care for my mother and my family, my wife. I'm taking up too much time. Thank you for this honor. Thank you for this moment, and thank you on behalf of Richard and Oracene, the entire Williams family. Thank you. Hope the Academy invites me back. Thank you.